waxaan aad iyo aad ugu kalsoonay anu mar hadday dumarka iyo dhalinyaradu u badan yihiin waa maqbuula siyaasadeenna imankana amba kaabeynadeenna iyo voting populationkeeduba mainstreamku waxa weeye dhalinyarada iyo dumarka iyagaa dominate gareeya siyaasadda maanta waxaana idiin sheegaynaa urur ahaan anagu labada meelood aynu xoojinaynaa bulshada inay yihiin dhalinyarada iyo haweenka inaynu xoojinayno ta labaad waxaan doonayaa inaan marka hore idinka aqbaliyeeyo sanadka cusub ee islaamka weeye maanta waa kow hijiradii markii uu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ee ka hijrooday maka uu madiine tegey markaasay taariikhda islaamku bilaabatay 1444 bay maanta joogtaa maanta kow ahayd ilaahay waxaan ka baryayaa inuu sanadkiisa inuu gaadhsiiyo nabadgelyo iyo barwaaqo tani maanta joogno ka wanaagsan ayaan ilaahay ka baryayaa ta kale waxa weeye anigu berbera maanta iguma horeyso anoo yar oo standard 1 2 3 4 afartaaba hargeysa berberaan ka dhiganaya anu waxaan ka bedeshay markaan standard 5 ka gelayay ayaan axmed guray hargeysa u bedeshay laakiin waqtigii aan yaraa ee ugu macaaneyd baashu reer berberaan ahaa waxaan garanayaa markaan gaariga ka raacno gawaaridu berigii hore waxay bixi jirtay 5 galabnimo reer dhalaal weynaan ahay dhalaal weyne malaa intiinan mid garanaya kuma jiro mimka mabruraaqa leedha magaalada meesha yare ka dhalaalaysaanu ahayn beriga xaafaddaasanu ku jiro waxaanu yaraatii saaxiib nin muuse daawud la odhan jiro ina casho dheer ninkaasaan isku ciyaal ahay taasi waa taa markaa anigu berbera nin reer berbera baan ahay marka taa eegto waxa kale jiro oo dhanna marka laga yimaado weliba markaa waxay ahayd magaalo dee quruxdeeda aad yaabayso qabiilkani waxaan aan ciibe aqoon waxaan garanayaa nin aan isku kalaas ahayn berigaa wallaahi 94 kii dhaweyto ayaan bartay inuu yahay nin reer barya hadda waa awalna waxaan u haystay nin reer berberaa marka baasha berigaa lama aqoon waxaa burburkii iyo inkaarahaasaa keenaya baasha qabyaaladaana ilaahay inuu inaga daweeyo oynu dee iska daweyn maayo waa inaynu la nimaadnaa wixii aynu kaga dawoobeynay oo dalku cadaalad helaa haddii cadaalad la helo baa laga dawoobaya laakiin haddii kiileedaasun lagu socdo waxba ma hagaagaya ta kale waxa weeye waxaan doonaya inu caawa ka hadlo arrimahan muranka ay aad moodo inay dalkeenna hadheeyeen beryahan dambe dalkeennu wuxuu lahaa jiray saddex xisbi saddexdaa xisbi imika jooga 20 sanayna hortaagnaayeen 20 sanayna hortaagnaayeen waxaan garanayaa 2005 kii baarlamaankii la doortay aynu dooranay 5 sano 15 sano u fadhiyey waa la qaban kari waayo doorasho madaxweyne kastoo yimaado waxay idhahaan 3 sano iskaga darso nin waliba markuu yimaado wuxuu leeyahay hadee kii horreeyba uu ku darsaday aniga maxaa kaniga galay sharcigeennaba wuxuu noqday la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan qodob yaroo ay guurtiidu meeshan u fadhiyo 83 la idhaa ayaa laga faa'iidaysanayaa oo waxaan lagu kordhinaya aan qabinba kumaba qorra ninku hadduu qabsan kari waayo hawshiisa in loo kordhiyo kumaba qorra marka waxaanad moodaa markii imanka ay wixii oo dhan ee doorasho ah sanka iska soo wada fuuleen inay haddana doonayaan sharcigii inay siday doonaan u dhigaan dhowr iyo 20 sano imanka joogeen 20 sano dadka imanka ururada furanaya waxay sugayeen waa bal 10kii sane ee ay sharcigoodu ahaa dee 6dii bilood oo dambeeyaa la gaadho markii imanka 6dii la gaadhayna waa muran may ma jirto waa in doorasho hadda doorasho inay beri hore qabtaan ahayd ayaa maanta la isku haystaa oo waktigii doorashooyin kala soo dhex galay iyagaana soo dhex geliyey maantana in sharcigii si ay doonayaan loogu dhigaa bay doonayaan annagu
annagu ka aqbali mayno in badan baanu sugaynay oonu daawanaynay oo ay siday doonaan sharciga ka yeelayeen maalinta jaaniska iyagu yimaado dee ka aqbali mayno qaar baa waxay yidhaahdaan hebel buu la shaqaynayaa iyo hebel buu nacoya annagu nina gaaro ma jeclin nina gaaro ma nacdin xuquuqdeedaanu ilaashanayna xuquuqdeedu ninkay gashaba waan la hadlayna cidna gaaro ma jeclin cidna gaaro ma nacdin laakiin xaqa aanu leenahay baanu ilaashanayna aan dabagelina xaqa iyagaana cidday gashaba waan la hadlayna cidna ka uga habran mayno talabaad waxaa weeye waxaa kaloo jira dalkeenna imika 30 sano ayaynu maraynaa 30kaa sano waxaanu dhaafi kari laanay ree hebel baa waxqaribay ree hebel baa haystay ree hebel baa aniga iyo annaga weye markayagii iyo waxa noocaas oo dheeran waa dhalinyarada ayaa waktigana leh annagu dee gaboonayba laakiin dhalinyarada waktiga leh waa dhalinyaro dee inay mustaqbalkiina ilaashataan oo sharciya dalkan uu yeesho lagu dhaqmo ayaa loo baahanya anigu waxaan ku shaqaynayaa oonu ballan qaadayaa in sharciyada dalka aan oo doorasho walba maalin la yeelato waxa weeye waxaasoo dhanna waxaa keenaya waa cadaalad haddii cadaalad la waayo waxaa ma jirayaan cadaaladduna maaha tan ay ka garnaqayso maxaa la yidhaha hay-adaha garsoorku ay ka garnaqaan maaha keliya waxa weeye manfaca dowladnimo in si siban loo qaybsado oo dadku ay ka wada muuqdaan taa marka la helaa cadaalad la helaya cadaaladdaa marka la helana horumar baa imanaya oo dalkii dalbuu noqonaya ilaahay waxaan ka barayaa inuu dadkeenayna tuso oo khilaafkan iyo waxaan siitamay ee inkaartaa ee neelay in ilaahay boggeena barcadso mariyo daynu somaliland nahay ilaahayna garansiiyo dadteenna ilaahay ii kaambeynkana maaha waxaan imika u nimoon horta inaanu xafiisyada furano bal lana register gareeyo oo gobol walba xafiiskii aanu ka furno marka waxba hadalkeeda ku bari maayo waa mahadsantihiin mar saddexaad mar afraad sida qiimaha le noo soo dhaweyseen aniguna si aan idiin sheegay mar haddii soo dhowlinteeda ay dhalinyaro iyo dumar ugu badan yihiin waa mabsuud waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin